walaalayaal waxaan ugu soo socdo bil barakaysan bil uu nabiga salaatu rabbi wasalaamu calayhi yidhi ataakum shahrun mubaarak bil ilbaabada jannada la furaayo ilbaabada naartana la xiraayo shayaadiintuna la xiraayo nabiga salaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay man xurima khayrahaa faqad xurim qofkii khayrkeeda bishaasi laga xaarantimay khayr oo dhan baa laga xaarantimay bisha waa bil barakaysan waxaa ku soo aroorayna dhammaanteen waanu garanaynaa laakiin waxaa lagu kala duwan yahay sida loogu diyaar garoobo iyo sida loo soo dhoweeyo bisha ramadaan shahru mubaarak dardaaranka ugu horeeya waxaa weeye in lagu soo dhoweeyo towbad iyo istikfaar maalmaha noo haray alle subxaana wa tacaala in loo toobad keeno towbad dhab ah yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allahi towbatan nasuuxa kuwiina alle subxaana wa tacaala rumeeyey alle u toobad keena toobad dhab ah wastakfiru allah ilaahay subxaana wa tacaala dembi dhaaf weydiista ilaahay waa gafuuru raxiim maalmahan haray waxaad gashaa bisha ramadaan qalbigaadoo nadiif ah oo alle subxaana wa tacaala u noqday oo alle subxaana wa tacaala ka baqanayo oo dembi kasta aad gashay alle subxaana wa tacaala u dhiib waxaad tidhahdaa allow dembiga iyo ka waa iga dhacay allow adaa gafuuru raxiim ah bisha ramadaanna waa soo dhowdahay ilaahoo ramadaan i gaarsii dembigaygana dhaaf waayo qofkii gala isagoo weli dunuubtii ay saaran tahay mugdiyada dunuubta ay xambaarsan tahay ayaa waxay ka hor istaagayaan inuu ka faa'iidaysto nafaxaadka iyo wanaagga iyo khayrka bishaas xuquuqda alle subxaana wa tacaala uu kugu leeyahay iska gud xuquuqda aadanaha ay kugu leeyihiinna iska gud haddaad qof xamatay ama aad dhacday ama aad dishay ama aad aflagaadaysay ama xumaan aad samaysay u tag qofkaasoo ka cafis dalab bishaa qofkii gala oo aan loo dembi dhaafi waayo waa qof hoogay weeye sida nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi uu yidhi haddaa gasho bishaasi adigoo lagu dembi dhaafin waad khasaartay weeye ka walaalayaal muhiimaddu ma aha axkaamta aan aqaanaa bisha ramadaan qur-aankaa dareeriyaa muhiimaddu waxaa weeye qalbigaada xaggu jooga laysa almuhimu ayna yakuunu jasaduk bal ilmuhimu ayna yakuunu qalbuk muhiimaddu ma aha jirhkaada meeshuu taagan yahay bal muhiimaddu waxaa weeye qalbigaada xagguu taagan yahay xagguu jiraa ilaahay ma ka run sheegtay markaad u toobad keenaysay waxaad samaynayso dar ilaahay makaa yihi niyaddaada ma mid khaalis ba ah mise waxay kaa tahay aa lagaa sheego bishaan ramadaan walaalayaa waa bil barakaysan laga yaabaa inay na soo marin sanadka dambe oo ka hor aan alle subxaana wa tacaala xaggiisa aadin waxaad diyaarsatay see u soo dhoweynaysaa bisha midda labaad waxaa weeye dardaaranka labaad xusnu danni billaah malahaada xagga alle subxaana wa tacaala inaad wanaajisid oo ilaahay khayr aad ka rajaysid nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu leeyahay xadiidka ibni xibbaan uu soo saaray oo saxiixa ah abu hurayrana uu warinayo ana cinda dan cabdii bi anigu waxaan ahaaday buu yidhi alle subxaanahu wa tacaala malaha addoonkayga meeshuu ahaaday oo xaggayga ah alle maxaa ka malaynaysaa
حليه النبي صلوات ربي والسلام عليه قال له وحيري إن كان خيرا فله هدو خير إيجا ما ليسنعين واسدا هدو الشر إيجا ما ليسنعين واسدا شيطان كوكو إيمانا يوحو كليه ما أذيك الله قودن بدافعيا ما أذيك دنبقايا قشان هدم ساعد كجريسا ما أذيك وحاسم ساعيا قرآن كأخرينيسا وحبضن بك تصايا شيطانكم وكليه هي أذيك حالات ضوابة تكتير مركب إلهي دنبداف ويديسو يا هذا ما أها مايا ملاها ربك حق ربك هذا وناج إلهي وغفور رحيم إلهي وتواب رحيم إلهي سبحانه وتعالى وحليم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله حديث الله سبحانه وتعالى حقق سننا إن الله يغفر الذنوب جميعا الله سبحانه وتعالى الذنوب تضم ودافع بل اسكب الداي لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة إلهي كهل الله كريستانك يا قال ذا كوي يري الله سبحانه وتعالى صدح ويه وإلهي سبحانه وتعالى صدح وصدحيا آية كحيت الله سبحانه وتعالى وحيري أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون حير الله سبحانه وتعالى كواسي الله سبحانه وتعالى أفلق ديناي والله سبحانه وتعالى عيناي أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه ميسن الله سبحانه وتعالى أتوبة كينيني ميسن الله سبحانه وتعالى دم بالأفوي دي سنين والله غفور رحيم إلهي هو غفور رحيم وكو أشري إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الله سبحانه وتعالى ويل با أسرنا حتى نوح كدر البايا أولي ورميذن الله سبحانه وتعالى أسر نقولين كانوا مسلمين والله سبحانه وتعالى إسلام للسيئي وناق للسيئي حان الله سبحانه وتعالى وتوبة كينين توبة دبا وحقي سأون نقولين وأن وناجين أعماشين إلهي سبحانه وتعالى وغفور الله سبحانه وتعالى ورحيم حقي سأن أنقونه ملاهن أن وناجين مثل أحد وحاوي ولا ليال إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه آن رعنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه آن رعنه حق سحورته يا أفرك يا صونك هذا صونك إنه سن أهان mid habeenka la soo jeedo maalintana la seexdo kaliya inuusan ahaan soonka ma aha in lagaaga joojiyey in cuntada kaliya aad ka waxaway ka fogaato bal waxaa la rabaa qalbigaada inuu dhismo uu jilco waxaa la doonayaa Allah subxaanahu wa ta'ala uu doonayaa xaqiisa inaad u soo laabato Allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu doonayaa qalbigaada inuu khushuuco oo Allah subxaanahu wa ta'ala u toobad keentid suu kaaga dhaqo dambiyadoo dhan لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه وحوليه من لم يدع قول الزور والعمل به قفكي كتغي ويعماش حن يبانت يدباتضا فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه إلهي الدن وكل يهي ملها قفك إنه كتغو النذي سيع بتاكس والله ريال بالشان وبالبركيسان تضبضن وهذه كل إكا isku da'ad ahadan ama ka yara ayaa tagay siiba waqtiyada aan ku jirno waqtiyada cudurka hadda socda waxa loo baahan yahay qof kastaba inuu isxisaabiyo inta sab xisaabta imaan oo bishan ramadaan aad niyeysato in Allah subhanahu wa ta'ala dambigaada dhan dhaafi doono ilaahay subhanahu wa ta'ala habeen kasto ramadaanka kamid ah wuxuu ka xoreeyaa adoomihiisa qaar kamid ah naartu ka xoreeyaa inaad habeenada dadaasho waa dardaaranka afaraade fi alqiyaam wa qiraa'ati alqur'aan quraanka inaad akhrisato habeenkii aad istaagto haddii taraawiix masaajidka ka jirto haddii ka jirinba oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraanka waa ku baray
inaad quraanka akhrisato juz hadaad ku tukan karto kayr hadaad ku tukan karto oo aad habeenka noolayso nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay man qaama ramadaana iimaanan wa ihtisaaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi qofkii habeenka ramadaanka istaaga iimaanan wa ihtisaaban soo rajeynaya Allah subhanahu wa ta'ala كرجينا يا الله سبحانه وتعالى خير أجر دنبي صار نبار ضعفاء وصور ضعفاء كدنبي وجعلناها إلا ضعف يا الله سبحانه وتعالى حقي سان ونقنا هذين ذا رمضان كنا عن كف أيدي سنة سيد النبي صلى الله عليه وسلم عليه أمرين بدا شماد وحويه إن أن هالمامن دتك نجوها رسالة ومساكين الفقراء بشار وبالبركة سوى النبي صلى الله عليه عليه صدقة يوم بحجر كالريح المرسلة دبايش على صادري أيوه وحاول أرديسه والنبي صلى الله عليه كصدقة بدنا بمعنى سوح لها وبحنجري ويه ركضوا إلهي حوجا حوجا كسية أما قود كذا أدهلس درس كذا مساكينته ما هكلي ذاتك صو أرضه وما لها مساجد ذا يذاتك كل واحد كبريا بدو حاجة كريها كوحريسا وأن لجور هين أو قفنا واحد ويدي سنين ذاتك هالذي أو واحد الصير وهلا وصل الأست سي إلهي سبحانه وتعالى أن نقول يوم القيامة نقول بالعفو أقومها لجور هين ذاتك خيرك يوناك فلا وما لنتان ما بيشا رمضان صدقاء بحصلة قربة ذاتك كفيدة إلهي سبحانه وتعالى أيقنا يوم القيامة أي قربة كفيدة تانا أن كود دالنا هل قف أفري لما قف أفري انت أديك كرانك هذا ويهي دتك أفري إلهي سبحانه وتعالى سوق وقون حريستو ولا ليال حق سوق بقبيننا إن ليس عفيه وليعفو وليصفحوا إلى الله سبحانه وتعالى هل يسعفيه دتك وحاول دتك وحكق لنها عفية ألا تحبون أن يغفر الله لكم وهذا جعلني الله سبحانه وتعالى وحاول يدين دم بدافهم الراحمون يرحمهم الرحمن قوة ذلك أنحرس إلهي سبحانه وتعالى نحرس بضنه أيها أنحرسته يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنحرس ذلك على الله قصقا وحايدين نحرسا كالسماء قصقا والله سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى طاعتك هنقع أقبله إلهي سبحانه وتعالى رمضان هنقرسيه